magacaygu waa Sacdiya Yaasiin Xaaji waxaan idinka mahad celinayaa TV-ga Soomaali Cable ma aaminsan tahay inay qof iyo cod dhacayso hadda oo 3 bilood ay dhamaan tahay may waana sababaynayaa inay ka dhacdo qof kasta jeclaa laakiin ma aaminsani mana dhici karto mana dhacayso sababtoo ah dee waqtiga ma jiraba 3 bilood weeye aniga dastuuriyan ayaan xildhibaan ku ahay qodobka dastuuriga ah ee 60aad ayaa wuxuu ii qeexayaa in aan 4 sano ay tahay xilhaynteeda 4 sano 3 bilood ay iga dhiman xalay waxaan u jeednay xildhibaano asxaabtayda oo meel intay iskugu tageen dhahayay intaasoo 50 baan nahay 60 baan haddii rabaan 70 80 ay noqon karaan ka badan ay noqon karaanba oo dhahayay waxaan rabnaa qof iyo cod waxay ahayd in laga shaqeeyo ay xildhibaanadu ka fikiraan 2017kii 18kii 19kii xaggee la jiray waxaa la jiray xukuumadda ee xildhibaanadu waxay ku mashquulsanaayeen gudoomiye la rido oo inqilaab lagu rido nin dhahay fikirkiina inuu ka soo jeedo darashada looga dhaco waxaanu ku mashquulsanayn maxaa la dhahaa dowlad goboleed la jajabiyo marka maanta oo 3 bilood ay ka dhiman tahay inaan niraahno qof iyo cod baan raadinaynaa waana nasiib darro waxaana been u sheegaynaa inta muqafiliinta aan waxba kala garanay qof kastoo maskaxda laakiin maanta uu garanaya aniga mid kale ayaa ii raacda oo iigu weyn maanta baarlamaankii aan dhex fadhiyaa program baa iska socda maaliyadii baa la leeyahay la ansixiyo waxa laga hadlayaa guddi dastuuri ah oo la rabo in maxaa la dhahaa muddo kororsi ah yaa muddada u kororinayo marka xukuumaddii dhacday aan ognahay sharciyan xukuumadda waxa ay qodobka 97 ra'iisul wasaarihii baa la riday xukuumad ma shaqayn karto maalin kastana warqadaan loo keenaa la leeyahay xukuumad baa wax wada maana waalan baa mas'aadan baa laga heesiyaa war adduunka Soomaaliya xagee u socotaa Soomaaliya anaga baarlamaankii baan nahay baarlamaanka dhex jooga maanta wallahi ciyaar ma aha wadankan dawladda madaxweyne Farmaajo meel xun buu rabaa inuu ka tuuro maanta oo kale waxay u baahan tahay odayo waxay u baahan tahay siyaasiyiin waxay u baahan tahay ummad islaam oo isku xil saarta ma aha qof walba 30 sano ayaa waxa lagu jiray maanta hebel baa haystee sidoo raba ha u dhaqo waana Soomaaliya waxa 30 sano gaarsiisay ani waxaan ugu baaqayaa aska Sacdiya ahaan in la soo farageliyo siyaasadda Soomaaliya shisheeye ma rabna inuu soo farageliyo laakiin waxa u baahanahay oday dhaqameed isbishal dadka Muqdisho jooga sababta isku mahmaahinay ilaa hadda ma garanayo war ra'iisul wasaare waa dhacay xukuumaddu waa la dhacday waana waraaqaha loo keenay shalay mid bay ahayd waxa laga hadlay burcabadeed maanta waxay ahayd xagee loo boobsiinaa wax xagee loo socdaa ma waxa la sugu laayaa bil inta ra'iisul wasaare la soo magacaabay ma dawladdu sugu laadaa tan faraha way ka baxday ani waxaan aaminsanahay inay tahay qiyaamo qaran waxaan aaminsanahay sharci la'aan in lagu socdo baarlamaanka gudoonka baarlamaanka shalay ra'iisul wasaare waa lagu rido 8 minutes halkaasaan taagnay ilaahay marxantigu ka ahaa warqadda la keenin waxba la sameyn hal mar la isagoo baxay walaalayaal hadda awood sida ra'iisul gudoonka ay u awood badan yihiin farmaajada biliga waan ku saarnay oo alisi madaxweyne kala hal doorto doris waa zaa'id hadda waxa lagu socdo ana hadalkayga intaas aan ku soo gabagabeynaya wadanka wuxuu u baahan yahay siyaasiyiinta aamusan ee madaxweynaha rabta ka hadasho siyaasiyo ma marka madaxweyne noqoto daalaysa maya mabana matashaan Soomaali ma matashin nimanka madaxweynayaasha raba noocay doonaan ha ahaadaan nimanka raba ra'iisul wasaarayaasha rajada ka qaba hadda ha hadlaan midda kale wadanku waa 4.5 nimayo madaxweynaha iyo ahli yeesho waa in dad qabtaan aw ra'iisul wasaarayaasha hore la hawla wala quwwata wallahi ciyaar inay iga ahayn wadanka wuxuu u baahan yahay wax gacanta Farmaajo ka qabto u baahan yahay